إله ما تسكال سكول كمان تحاول دكتور سفرية أو ما أنت امتحان هذا قال حتى العقل مو دي آدي نقوم هتسين أنت نعاوسن إله خير هالسيو. waxaan haatan ka dhaqaaji doonaa xarunta dhexe ee Bidaan Production waxaana u soconaa oo aan warbixin kooban idinkaga soo gudbi doonaa mid ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan ummadda Soomaaliyeed daawadayaal waxaan ku sugannahay afafka hore ee dugsiga Al-Mustaqim oo ah dugsi waxbarasho oo wax lagu baro ardayda danta yar iyo ardayda agoonta ah ee magaalada Muqdisho ku nool hadda waxaan idinkaga soo gudbi doonaa warbixin kooban sida uu shaqeeyo dugsiga horumarada waxbarasho ee ka socda dugsiga gudihiisa ee la socod wacan waxaan dhex taaganahay dugsiga hoose dhexe sare ee Al-Mustaqim ee hoostaga mu'assasada Al-Mustaqim Foundation waxa uu ka mid yahay madaarista ay ka faa'iideystaan ardayda danta yar iyo ardayda agoonta ah haddaba waxaan idinkaga soo gudbi doonaa halkaani warbixin kooban ee waxqabadka ee mu'assasada iyo dugsiga hoose dhexe sare ee Al-Mustaqim Bismillahir Rahmanir Rahim أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ardayda dugsiga Al-Mustaqim waxay u wada fadhiyaan oo ay dhageysanayaan barnaamij subaxeedka ee taabuurka ayagoona ay jawigoodu yahay jawi aad u degan oo ay u hilowsan yihiin waxbarasho وعن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ومن ابتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وما وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يردع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد متقة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب بسم الله أنا مقعي هاي سماي وكر محمد أو قدك سكول كالمستقيم برن سكندري سكول أو قبرك صوب العالمان دكسي هوسي أو فصل كواد إيمانتنا الحمد لله رب العالمين فصل كلويتونا دو فنفور إله ما تسكال سكول كمان تحاول دكتور سفرية أو ما أنت امتحان هذا قال حتى العقل مو دي آدي نقوم هتسين أنت نعاوسن إله خير هالسيو محلها وحن رجعنا سان إن كسي لو جباران أمة الصوماليات إن سكر بستاجان أنت يعني إنك بدنا وكرجينا waxaan u mahadcelinahay hay'adda samafalka Al-Mustaqim iyo dhammaan inta oo garab taagan oo dal iyo dibadba joogto anigoo Abdixsaad Raxmaan waxaan dhigtaa dugsiga Al-Mustaqim waxaan soo bilaabay fasalka form 2 waxaan ku soo biiray fasalka form 2 way ku maasiin asaasiyaadka dugsiga Al-Mustaqim ku maamulka dhammaan macallimiinta bismillaah wala salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo magacaygu yahay Aisha Maxamed Cali kana soo ardayda kana tirsan ardayda sideedaadkii sanadkan imtixaanka dawladda sugayso waxaa ka tirsan ardayda Al-Mustaqim waxaa dhammaan mahadnaqayaa muslimiinta Soomaaliyeed ee lacagta iyo dhaqaalaha nagu kordhisay waxaana si qaas ah ugu mahadnaqayaa macallimiinteeda iyo maamulkayga dhiirigelin fiican siiyaan aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin waxaan ku guda jirnaa fasal ay ka socoto waxbarasho waxaa ku jirto mid ka mid ah macallimaadka dugsiga waxa ayna dhigaysaa maadada sayniska maanta waxaan qaadanaynaa casharka saddexaad cutubka labaad ee maadada sayniska fasalka sadeedaad ciwaankeenu waxa waaye isticmaalka guud ee biyaha waxaa la yidhi biyaha waxaa loo isticmaali karaa ujeedooyin kala duwan waxyaabaha loo isticmaalana waxaa ka mid ah biyaha yaa sheegi kara waxa loo isticmaalo cunto karinaa loo isticmaalaa maxaa kaloo loo isticmaalaa cabidaa loo isticmaalaa maxaa kaloo loo isticmaalaa maxaa kaloo loo isticmaalaa haye dhardhaqida ka warrama iyo waraabinta gurigiina hadduu beer ku dhex yaallo kale soo looma isticmaalo kuwaas waxaa la yidhahdaa waa ujeedooyin guriyeed waxaan dhex taaganahay mid ka mid ah fasalada dugsiga sare gaar ahaan fasalka form 1 waxaa ka socota xiisada maadada xisaabta macallinku waxa uu sharxayaa ardaydu maadada xisaabtu ayaguna waxay u dhageysanayaan si degan 9 prime number miya 8 waa si furfura mooho okay 9 aa si furfura aydan intee ka imaado dhaha 9 waxay ka imaaday aydan 3 lagu dhuftay 3
saddex lagu dhuftay saddex waa prime number maho okay tirooyinka prime numberka marka waxaa sameynaa calaamadaas wareegaa gelinaya waxaan ku sugannahay fasalka form 2 waxaa ka socda maadada luqadda carabiga oo ay sharxayso macallimad ka mid ah macallimaadka dugsiga almustaqiim cashirkeena maanta waxaa ka hadlahaa dhahnay alkhayaaru fi lbayci ereyga khayaarka waxaa dhahnay go-aan khayaar maxaa dhahnay waa go-aan sida anaka si guud ahaan soomaalida aan dhahno shayga khayaar ayaa ku leeyahay ama khayaaraa leeyahay markii dhahay khayaarkaas naftirkiisa waa kii af carabiga ahay oo khayaarka ka hadlaya laakiin dhankaani meeshaan wuxuu ka hadlaa dhahnay dhanka beeca ayuu ka hadlaa si guud ahaan cashirkeena wuxuu ku bilaabahaa alxikmatu min mashruuciyatihi xikmadda ku jirto inuu sharci noqdo go-aanka maxaa dhac bini aadan kasta xor waaye go-aan ayuu u leeyahay inuu gato amba gada shayga uu leeyahay amba gato shay oo isaga raba dugsiga waxaa ka socda qaybta attendance-ga ama xaadirinta oo lagu ogaanayo ardayga maqan iyo ardayga kale halkan waa dugsiga almustaqiim oo ah dugsi waxbarasho oo wax lagu baro caruurta Soomaaliyeed iyadoona laga fikirayo aqoontooda iyo iyadoona ardayda lala xisaabtamayo bismillahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Bashir Abbas Xaaji Iimaan waxaan ahay maamulaha dugsiga hoose dhexe almustaqiim waxaan mahadcelinaynaa maantay Bidhaan Production ama bahda Bidhaan Production oo maanta soo booqatay sidoo kale haddaan idinkaga warbixiyo iskuulka almustaqiim waa horta iskuul caadi ah iskoolada caadiga magaalada mid kamid ah waaye iskoolku wuxuu kaga duwan yahay iskoolada kale ardada wax ka barata 100% si free ay wax ku bartaan oo $1 qof laga qaado kuma jirto iyadoo sidaas ay tahay ardada dhigato ilaa 500 ay kor u dhaafayaan waxaa jiraan laba gelin ay kala dhigtaan gelinka subaxdii waxaa dhigto dugsiga dhexe iyo dugsiga sare oo aad maanta aad aragtaan inta ay leeyihiin aad indhihiin aad ku aragteen sidoo kale tood arday aan ka yareen ayaa sidoo kale iyagana jooga galabka jooga oo ah dugsiga hoose iyo qaar ka mid ah dugsiga dhexe 95% agoon waay waxaa jiro arday ayagana sidoo kale tood jaabka agoon ah oo aan awoodin sidoo kale tood inay wax bartaan oo anagan u sameeynay aan waalidkii noo keeneen ay nagu dhaheen ardaygan agoon waxba ma dhaamo ayagana aan ka aragna duruufta iyo qaabka ay waxbarashada ay rabaan oo markaas aan diiwaan gelinay sidoo kale tood ayagana wax ka bartaan ayaa jiro laakiin agoonta ay la mid yihiin mid $1 laga qaado kuma jiro السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waxaan u mahadcelinaynaa Bidhaan Production oo maanta noo soo booqatay xarunta dugsiga aqoonta almustaqiim mahadcelin ka bacdi runtii anigoo magacaygu yahay Cabdirashiid Cali Xasan agaasimaha hay'adda almustaqiim hay'adda almustaqiim waxaa la aasaasay sanadkii 2017 waa hay'ad ka shaqeysa guud ahaan samafalka gaar ahaan waxbarashada caruurta agoonta ah sida aad hadda arkaysaan baan noo soo booqateenba xarunta waa dugsiga hoose dhexe iyo sare ee aqoonta almustaqiim waxaa wax ku bartaan in ka